sifooyin badan ayaa jiro markaad ku aragto gabadha xiriirka aad leedahay ay muhiim tahay inaad isaga fogaato ama aan waqti isaga lumin. Inta badan dhalinyarada waa kuwo aad ugu wareersan markay arkaan sifooyin badan gabadhaasi ay tahay mid xiriirka ay dhab ka tahay ama ay doonayso. Muuqaalkan ayaan kugu soo gudbin doonaa waxyaabo badan haddii aad ku aragto ama qodobada aan kuu soo waday khasab tahay inaad waqtigan isaga lumin gabadhaasi ama aad ka fogaato. Marka hore muuqaalka like saar, saaxiibadaadana gaarsii. sifooyinkan haddii aad ku aragto gabadha wiil oo isaga fogow waqti isaga lumin. Fariimaha aan lagaga soo jawaabin waqti ku habboon. Saldhigga xiriirka wanaagsan waa xiriir wanaagsan, isgaarsiin la'aan ma jiraan wax isku xiraya labadiina. Marka 3 saac ka hor fariin aad u dirto qoraalkan uu gaaro laakiin weli ilaa hadda aan wax jawaab ah aadan ka helin, taasi waa calaamad oo muujinaysa in wax qaldan yihiin, isla markaana ay aad u xanuun badan tahay in lagugu sheego inaad isku qasbayso haweeneydan. Sidaa darteed, niyahow waad ka qiimo badan tihiin haweenkaasi u malaynayso inay ku fiican tahay indhahaaga. Hel waqti aad ku fikirto kuna ogaato in waddo qaldan aad ku socoto. 2 ma aragtid markaad u baahan tahay ama ballan aad leedihiin. niyahow sida la ogyahay ma jirto gabar had iyo jeer mashquulsan marka wiilka saaxiibkeed ah uu u baahan yahay. Haddii aadan adigu ahayn midkay rabtay, waad wacday si aad u kulantaan, laakiin way diiday iyadoo sheegaysa in waqtigaasi ay howlo ama ay mashquul tahay. Waxaad mar kale weydiisay inay iyadoo waqti qabato aad kulantaan, laakiin adiga ilaa hadda weli ma aadan helin jawaab. Sababtuna waxay tahay inay aad u mashquulsan tahay. Hagaag hawlwalin runtu waa wax aan kuu sheegi doono. Maskaxdeeda kuma jirtid, keliya aqbal inaysan ku rabin oo hor uga soco. Waxaa jira haween badan oo ka qurux badan iyada oo aad heli karto. Ha ku qasbin naftaada meel aan lagu qiimeynin xaqiiqdii. Iska daay maadaama aysan ku rabin adigana hor uga soco. 3 fagaara ay kugu diidaa. Way xanuun badan tahay in gabadhu ku diido meel fagaara ah kadib markii ku dareensiisay inaad tahay qofka keliya maskaxdeeda ku jira. Aad bay uga sii xanuun badan tahay inaad aragto iyada ugu diidaysa saaxiibadeeda hortood. Hawlwalin waxaa la ogyahay in haweeneydu aysan ninka hor taagan u sheegin inaysan jeclayn. Marka uu qaado kuwan calaamadaha muujinaya inaysan ku jeclayn, haddii kale waxaad ku luminaysaa waqtigaaga adigoo ceebo kale gelinaya naftaada. Muuqaalka daakay saaxiibadaada gaarsii walaal, weliba si qaas ah ugu dir saaxiibada calaamadahan oo kale ay khasab tahay inay ogaadaan oo xiriirka leh gabdhaha kale.